xaqa ninka lagu leeyahay waxaa ka mid ah si wacan inuu gabadha ula mucaamaloodo oo ixsaan saaxiibnimo wanaagsan gabadhii kula dhaqmo oo dhibka ka daayo oo xuquuqdeeda aanu meermeerin oo aanu caayin oo aflagaadeynin oo gabadhii waji furfurnaan iyo qosol iyo naxariis iyo soo dhoweyn iyo bashaashad uu gabadhii kula mucaamaloodo waayo taashashka qaarkood baa khafiif ah oo laga yaabo qofka jirkiisii waxa weeye in la daawanayo arrinka noocaana mafaasid badan baa ku jira mid kale waxa la habeenkiiba ka seexan waay ilowba warqadaydiisi ilowba warqadaydiisi illow raasu deedna warqad buu ugu qoray baa leeyahay gabadhaas waxa ma akhri jirin hiya la taqra waxa ma akhri karin markaasuu yiri inni la uhibbuka gabadhaydi baa taan ku jecelahay aad iyo aad hoobu warqadii intuu laalaabay waa tan balantay wax ku taraysa hayso waxa ka dhashay wax la yiraahdo ishaaca in la faafiyo marka hadday dhacdo oo qof muslim dusha looga tuuro oo dadku ku sheekaystaan macnaheedu ma runba taa macnaheedu ma runba waa xarbul ishaacaat baa la yiraahdaa marka madaxweyne aad buu cadhooday aad iyo aad buu cadhooday karaartaasi kaga dhigtay miyaa loo dhintay aad buu cadhooday wuxuu si degdeg ah halaygu keeno ninka sheekhu markaa la wado oo la soo taandeeyey ayaa la soo hor joojiyey madaxweynihi waxyaabaha lagu tarbiyadeynaya waxaa ka mid ah iimaankaa soo gudagelaya in saxaabada lagu tarbiyadeynayey muraaqabatullaahi caza wajal alla inuu la socdo xoogaan u yahay daalacanayo waxay samaynayaan iyo waxay ku hadlayaan iyo waxa khawaadirta iyo niyooyinkooda ku soo dhacaya iyo waxa ay ka tegayaan intaba alle subxaanahu watacaala inuu la socdo oo muraaqabaynayo dareenka noocaas inay yeeshaan ninkii inuu reerkiisii u soo khidmeeyo oo u soo shaqeeyo oo meel fiican dejiyo oo masaariif fiican siiyo oo islaamtiisii raali geliyo oo waxa weeye ka farxiyo ayaa looga baahan gabadhina ninkeedii saas oo kale inay gurigeedii ku sugnaato oo ninkeedii u khidmayso oo raali geliso oo ka farxiso oo carruurteedii tarbiyadayso ayaa iyadana looga baahan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka warramaya qaraabo xidhiidhinta iyo riximka in la xoogaalsado oo la xidhiidhiyo in lagaga badbaadayo xisaabka qiyaame iyo dhibaatooyinka yaalla maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa dhaqan ii ah xaasaskayga markaan la hadlayo inaan ama ay la soo hadlaan inaan idhaahdo marwo yacni kelmaddaas ayaan isticmaalaa telefoonkana taas ayaa igu safgaraysan marwada koobaad iyo marwada labaad ayaa ku safgaraysan marka maalin maalmaha ka mid ah aniga oo gaari nin aan wada soconno ayaa mid ka mid soo garaacday markaasaan ku yidhi haye marwo iska waran ma fiican tahay ninkii wuxuu igu yidhi ma marmadii madaxweynahaad la hadlaysaa buu igu yidhi waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a awlaadda yaryare markaa iskuullada dhigata gaar ahaan qolada rawdooyinka ku jira ayaa ilmo yari subax subxaa ka mida wuxuu soo qaatay shandadiisii iyo markaa garaabo uu ku soo gurtay iyo weysadii markaa sharaabka markuu soo fadhiistay miiskii fasalka uu soo galay ayaa ilmihii yaraa weysadii halkan dhigay yacni shadadiina furtay garaabadiina ka soo saaray waxaa loo eegi jiray oo yidhaahdaan guurka waa saddex waa hidda raac iyo hunguri raac iyo heemaan raac hadda hunguri raac waxaa looga jeedaa marka duunyo un la isugu xisho ee aan wax kale oo qiimihoo ka dambeeya aanu jirin heemaan raacna waxaa la yidhaahdaa waa marka quruxuun la eego oo halkaa gabadh baa kaarta wallahi gabadhaasi qurux bay leedahay qiimigeeda cidima oga